السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. halkan waxaan ku duubanaa barnaamijkii la magac baxay taliya tusaale oo ururka maalmaal soo abaabulay maalmaal organization gaar ahaan magaalada Burco. maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa 3 qodob oo dhalinyaradeena ama bulshada weynteena Soomaaliyeed geeyigana Soomaaliyeedna aad u saameysay inoogana timi wadamada reer galbeedka aynu dhaqamadoodii raacayno qaar ka mid ah. 3 qodob oo kala haasawiye hore ee wiishin iyo beeshin hore ku haasawi jireen iyo haasawaha maanta dhalinyarada heerka ka taagan yihiin bedelkeedana oo bixiyeen magaca loo yaqaan xiin ama isla wada garanayno xiin. qodobka labaad oo ah sirta qoyska oo isaguna maalmahan dambe wax koobelis leeyahay loo sameeyay oo baraha bulshada lagu soo faafinayo ninkii iyo gabadhii isqabay halkii khaas u noqon lahayd ay baraha bulshada ku soo faafinayaan muurahoodii iyaga oo khaas ka ah sawirro ama haata fiidiyo dadkuna ay bixiyaan koobelis ama dhalinyaradeena aynu naqaano koobelis waxa loo yaqaan wax jirana aan ahayn ana habboona xagga diiniyahanad iyo xagga dhaqaalaha. qodobka saddexaad oo cilmiga halkan ka taaganahay maanta cilmigu ma sha Allah heer wanaagsan uu maanta inoo mariyaa laakiin waxaan doonaynaa inaan heerka ka sii badino oo inteena maanta cilmi aan lahayn iyo inteena cilmiga leh waxa badan inteena aan cilmi lahayn inaynu gaarsiino oo ka sii farbadino. haddaynu turno qodobkii koowaad oo ahaa waliba sheekadu inay 3 qodob ku koobnayd. qodobkii koowaad wuxuu inoo odhanayay haasawaha maanta iyo haasawiye hore waxay ku kala duwan yihiin. haasawiye hore marka Soomaalideena hore iyo wiishin hore iyo beeshin hore markii haasawayaan waxay ku haasawi jireen hadal murti iyo maadli inta badan intooda badanna waxay haasawi jireen xilliga guga saynu naqaano ay haasawi jireen oo ay soo gudbi jireen wixii fikro ay qabaan ama inta iyo haasawi jireen oo sahantiga jireen lacala bal raadin jiray inta loo sahantiga jiray oo la raadin jiray cidii tahay reerkooda xagee ka soo jeedo dhaqan wanaagsan ma leedahay ma xun tahay maxay kaga duwan tahay hablaha kale inuu kurgay jireen. habka maanta aynu joognaana inuu ku duwan yahay ilaa xad baynu aragnaa oo inantii waxa lagu raacayaa dadnimo lagu raaci maayo quruxna lagu raaci maayo laakiin waxa lagu raacayaa waa quruxda wajiga. quruxdan sheegayna ma aha quruxda wajiga waa quruxda qalbiga weeye. sidaynu ogsoonahay quruxda qalbiga ayaa ka wanaagsan quruxda wajiga sababta quruxda wajiga waa leebsadaa waana la sameystaa laakiin quruxda qalbiga cidina ma iibsato cidina ma sameysto dhayala laguma helo qofkii nasiibka saaciidoon baa hela inaan taawkur gallo ayaa loo baahan yahay haddaan dhalinyaranahay oo aynu falowgeeda qabano ay la daawado qormadan yar. حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن run ahaantii nolosha miyigu si weyn ayay uga duwan tahay ta magaalada xitaa habka haasawaha iyo sheekaysiga dhalinyaradu marka ay guurdoonka yihiin ayaa aad u kala duwan. haasawaha miyigu waxa uu ahaan jiray mid qiimo weyn leh dhaqan iyo asluub leh isla markaasina aan degdeg iyo deelqaaf midnaba aanu ka muuqanin bal aynu eegno masraxiyad kooban oo sawir cadi inaga siinaysa sidii uu u dhici jiray haasawaha reer guraageennu ama dadka baadiyaha ku noolay. inantaa waa ku salaamay aniguna sidoo kale baadi soo fogaatiyo inna sawra xoolaad miyaad saaka aragtay intay sabadaa joogeen haddaad ku sogsagto soo dabaali weyday sii raadintoodani maxay saaga kuu tari dhega
oo adigan sanaare sayr hadalkee waa maxay saluugay ha saruugin hadalkee soo kaabi sheekada waayahe sideedaba haade maxaad soo wadataa xaajo soo jireenaba sahw iigu abuurto saakaan kuu wadaayo sahan baanu haygu oo halkuu ku siman yahay dee adigu ku sugan yaho sinaba kuma dhaafsana carre laga susumayoo san ku neefla jirin baad sacabada ka tumataaye sintaa bidix ba laga dhaaf salka maadu yar dhigi maya ee ka sii soco adigoo sindheerabaan dusha kaa suntadayo intaa kuu sabraayey soo noqon labaadiyo ballan sugan u ballisiisi ilaan sidaa kaaga dhaqaaqi maaye ballana ballan sugan isiisi ballan sugan waa inoo sannadkiisa markuu roobku soo doo oo iyo xaggee ilaa yadda meesha reerkayguu guuro ood soo heshid inkastoo simanay sannad buuxaad qabato sii fogaysay ballankii ha yeeshee sideedaba dantu sayta weeye waa inoo sidaa ti dee kolay nin dani waddaan ahayd si aan kugu soo helaba reerkiinna iyo halkiinuu guurtaanba dee waan ku soo heliye iminkana waan sii soconna nabadgeliyad waaye nabaadtiin رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا markii sanadkaasi ay inantu qabsatay uu dhammaado amaba muddadii kale ee lagu heshiiyey wiilku waxa uu soo raadsadaa qalanjadii uu calmaday haddii ay xaajadu markan is-afgarad iyo guul ku dhammaato wiilka guurdoonka ahi waxa uu yimaadaa tolkii inantu ay ka dhalatay halkaasi oo inantii loogu hideeyo laguna daro waana dhaqan ab iyo isir leh islamarkaasina huwan anshaxa iyo maamuus haddaynu halkaa kaga nimaadno bal qormada ayaar ee kooban ayna tusisay sida awyaashiinna hore iyo ambayaashiinna hore u habsaawayeen aynu halkanna ugu nimaadno qormo yar oo ka hadlaysa iyadoo maanse yar oo isbarbar dhigaysa haasawaha dambe iyo keenii hore waxay ku kala duwan yihiin haddaynu eegno haasaweennii hore aad iyo aad buu uga xeel dheeraa ugana dhiirbacadka kan maanta oo qofbad quruxdiisa wejiga ku raacday berri ka maalin markay baabado waxaad oranaysaa waxaan kugu soo raacay kaama helayo waanan kaa tegaya waan kaa daldoorsanayaa laakiin kii beriga hore sidaa wuu ka duwanaa waana laisku aadi jiray laisuna waari jiray halkan waxaan ku haynaa maase yaro ka turjumaysaa sidaynu horeba u soo sheegnay haasawee horena iyo kan maanta waa laba habloodoo saaxiibbaa laba inan bay kala jeclaanayaan inanna dhaqankii bay jeclaanaysaa inanna casrigan lagu jiro ay jeclaanaysaa reerbeebeel laga soo dhaxay waxaanayna odhanaysaa sidan waa laba hablood oo saaxiibbaa midna jamaad baa ladhaa midna xaybla bayla dhegayso saaxiibtay jamaadey casri waxaynu joognaa jiilba jiil bedelayo ilbixnimadu ku jarantahoo maantana jamaadey jangalkii dhulkeenniyo jeelkii ka nimido jarmalkii galbeediyo yurub baynu joognaa waxaan jecelay saaxiib wiil jeeni weyno jiimkana ciyaaro jidhku wuu dhisanyo jagsan intuu u egyahay jaaskiiyo yaqaan dhaanis waa inantii reer galbeed la haysay weeyaan waana haasaawaha dambe ee maanta dhallinyaradeennu ay ku socoto waxaanan odhan lahayn ma socotee maad iska daysaan ama aad ka diga roogtaan oo dhaqankeenna iyo diinteenna waxayna anfacaya doorataan inantii jamaad oo saaxiibadeed ceeble oo caqli celinaysa una sheegaysaa waxaan inuu yahay wax khaldan
ayay afkaarteeda ku soo uruurisay maanse yaroo kooban iyaduna waxay tidhi mahmaah fog baad tidhi raggu magaca guud iyo magta waa ka siman yahay gabadh yahay murmaysaa abaalmarin xaqiiqda maqal waxaan ku leeyahay way u aqal celinaysaa saaxiibadeed bay ku sheegaysaa inay dhaqankeedii aanay ka tegin oo hiddaheedii iyo dhaqankeedii ay u soo noqoto maqal waxaan ku leeyahay raggu waa midkii mabda lagu yaqaanee maamuusa dhaqankee hiddihii mudnaa iyo ku mintida wuxuu yahay mabda reer galbeed iyo may kal hiigsanaysaa dookhayga maahee maca salaamanan yahay wabilaahi towfiiq waa maansadii oo iyaduna halkaa ku soo gabagabooday oo inantii jamaad saaxiibadeed ceble oo la haysay jarmal iyo u soo aqli celinaysa kusoo hidihiinni iyo dhaqankiinni subanaa u soo bandhigaysa ay iyaduna ku turjumaysay haddaynu qodobka xiga u gallo oo ahaa sidaynu horeba u soo sheegnay sirta qoyska ama waxaan loo yaqaano kuubaliska maxay diinteenna ku qabtaa dhaqankeennuna muxuu ka qabaa qoyska waxaa marka jacayl uu meesha yimaado reer baa dhisma awlaad baa samaysantaa dad baa inaga tafirma oo inaga abuurmaa kadib markaa waxay soo baxaa nolol cusub iyo qoys cusub baa soo baxaa halkaasay kasii socotaa xaaladda nololeed ee waaga lagu jirayo markaa laakiin inaad tiraado gabadhaydan jecelahay jacaylkaan u qabana dadkan tusayaa mid maaha socota taasi waa waxa reeruhu ku dumaan lagugu kala tago if iyo aqrab waxna anfacaya maaha inaad sawir iska qaaday koo aan habkii loo baahnaa ahayn qaaqaawin haddii doonto meeshu hawshu aanay cakiran tahay oo aan jawgu deganayn inaad sawiro la gasho gabadhii aad qabtay oo aad barihii bulshada iyadoo tima qaawan adoo fiina xidhan nooc kale ah dadkiinuba aad si kala tihiin inaad barihii bulshada soo dhigtaan oo aad ku soo dulqartaan hadhowna kuubalis baan nahay dadkii jacaylkaan nahay mataanii jacaylkaan nahay wax inaga suurtooda maaha haddaynu Soomaali nahay dhaqan iyo hidana waxaynu leenahay waa inaan mabda'eenii ku laabano oo dhaqankeenii aynu tixraacno awyaashin lagama hayo iyagoo sawiro qaaqawan dumarkooda la soo galaya oo hadhowna ku soo dulqaraya kuubalis baan nahay ama mataanii jacaylkaan nahay mataanaha jacaylka waxaa looga baahan yahay guriga dhexdiisa sirta qoyska ayaa looga baahan yahay sirta qoysku ku dhisan yahay haddaynan garan mayno hadhowna mustaqbalka waxay noo dambeynayaan qoyskaasina sidaa daraaddeed wuu lumaa waanu baabaa sawiradaasna sawiro feelgaroobay ay noqdaan markaa waxaan isu sheegaynaa dadweynahan sharafta leh Soomaali gebi ahaanba meeli joogaan oo dhaqanka reer galbeedka laga haro waxaad filmaanta ka daawanaysaan inayna waalay inaga daaya waynu leenahay oo sirta qoyska aynu ilaalino oo xaasaskeena iyo dumaradeenna aynu ilaalino sharaftooda ilaah baa karaameeyey ilaah baa sharaf yeelay aynu ilaalino oo sharafta aabaheena iyo karaamadeenaba aynu wada ilaalino qodobka saddexaad aynu gudubno oo ahaa cilmigu sidaynu wada ogsoonahay waxa lagu wada kala socdo weeye dadkuna ay wada socdaan weeye haddaanu cilmi jirin meeshii dhaqan ma jiro dadnimana ma jiri doonto nolol sii socotaana ma jiri doonto waxaa loo baahan yahay inaynu cilmiga isgaarsiino kiina wax garanaya inuu gaarsiiyo hooyada ubadkeeda wayna soo gaarsiiso cilmiga aabuhu ubadkiisa wayna cilmiga soo gaarsiiyo macalinku ardaydiisa wayna cilmiga wacana wanaagsan soo gaarsiiya saafiya oo aan xan iyo xaasidnimo aanay ku jirin inaynu cilmiga soo gaarsiino loo baahan yahay miyi iyo magaalada ka jooga oo aynu u gudbino waxaan ku dhaanno nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri balliqu anni walaw ay iga gaarsiiya aayadna ahaatee waa yani cilmigii nabigu waxyigii ku soo degayay xadiistii wixii oo dhanba muxuu yiri iga gaarsiiya hal aayadna ahaatee asxaabtiisii la joogtay xilliga oo inuu soo gaarsiiso maanta cilmiga diinta halkan wanaagsan inoo maraya shuyuukhdii inoogu hagayso maalin walba inuu wacdiyeyso inuu toosinayso oo dhaqankii inuu suubanaanayo inuu hagaysanaanayo sidoo ugu wacnaydna noqonayo marka waxa loo baahan yahay inaynu gabi ahaantiin baysgaarsiino cilmiga meel walba aynu joogno waayo dad muslimiin aynu nahay maanta cilmiga inaga u baahan inaga ku antifacsanayna wax ku falayna inaga ku loo baahnaa inaga weeye inaynu isgaarsiino gabi ahaantiin ba weeye cilmiga oo aynu meel uga soo wada jeegsano san cilmi iyo aqoon iyo isweydaarsiga aynu u lahayn insha Allah bilal kareem intaasaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeennii maanta taliyo tusaalo waxaan kaga tegnaa anagoo waarurka maalmaal anagoo Faysal Maxamed Cabdi oo soo jeediya barnaamijka inaynu dib uga kulmano barnaamij ka lamida ama
ka xiiso badan oo ka hadlaya waxa markaa mujtamaceena ka dhex jira oo aynu doonayno inaanu ku hagno mujtamaca oo aynu u sheegno bulshada halkay ka khaldan tahay iyo halkay ku saxan tahayba saddexdaa qodobna saddex maanta inagu caana weeye dhexdeena inaynu iska dayno ilaahay dartii u dhaafno ayaa loo baahan yahay oo aynu wixii hagaagsanaa aynu dhaqan iyo diin baanu ka soo gaarnay aynu ku dhaqanno si aynu noqono bulsho hagaagsan berri ka maalina meel ka soo baxda kana iftiinta adduunka intuu joogto bilaahi tawfiiq intaasa kugu weynaa